السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شيخ محمد وي صومالي. waxaan ka hadlahayaa ninka Ibrahim Sarka oo la magacaabay oon xalay ka hadlay oo kii xalay Soomaalidu ay baraha bulshada ku saadaalinaysay noqday. ninka saddex mahmaah baan ku ridin warkiisii kala xalan sheegay, laakiin waan u mahmaahino saddex mahmaah baan ugu mahmaahin. waxaan se warkayga dhan ku socdaa oo la hadlin gobolka Gedo nin mareexaanka reegadaha oo ka hadlay maanta xamar ka hadlay oo leeyahay Cabdirashiid Janan. ninkaasna waan u jawaabin, reegadana ayagana saddex mahmaah baan ku dhufan. Cabdirashiid Jananna hal aayad oo Quraan ah ayuu u soo dilishaday madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, asagoo reegado iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aayadaas u soo wada dilishaday. marka aayadii Quraanka ahayd oo soo dilishadana lix baan kaga jawaabaynaa, halkii aayad baan lix uga jawaabaynaa. warkana waan soo gaabino hadduu u bato 20 inuu isla gaarin ma isku dayahayaa, waa un dul maraya. warka ma badinayo, 10 daqiiqo ilaa 20 baan ka sii deyn haddii la yiraahdo. waxaa saldhigoo warkeena aayadda Quraanka oo uu soo dilishaday Cabdirashiid Janan. qaala tacaala فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. waxaan ku hormarin reer Gedo iyo saddexdooda mahmaahood. Cabdirashiid Janan baan ku xujin saddexda mahmaahood oo barnaamijka cusub aan ugu doomarin warka. reer Gedo waxaad in leeyahay barnaamijka cusub maanta la magacaabay 15 Juun 2022 oo maalintan hadda London aan ka hadlayo UK. horena waxaa loo doortay Xasan Sheikh Maxamuud 15 May, waa bil ka hor maanta. waagaas waa idin la hadlay Xasan Sheikh la doortay, maantana waa idin la hadlin. saddex qodob ayaan idin sheegin, mahmahaba ka dhigta adinku. midda koowaad, isku duubnaado yaan laydin kala furfurin oo laydin kala dhexgelin adinka mareexaanka reegadaha. waa mahmahda koowaad. mahmahda labaad, jawaasiista mareexaanka oo TPLF u shaqayn jirtay oo Kenya hadda u shaqaysa oo hadda wili TPLF ku xiran oo Axmedooba ku xiran oo kuwan damul jadiid oo Xasan Maxamuud hadda madaxweynaha Soomaaliya ah uu ka tirsanaan jiray, wilna ka tirsan yahay. damul jadiidna hadda xiriirka la leh. mid ka mid ah yuu sacag soo saarin gobolka Gedo, inta joogtana ka kaxeeyo ka cayriyo. waa mahmahda labaad wey. mahmahda saddexaad, kan hadda maanta la magacaabay oo Ibrahim Sarka iyo kii ka horreeyay madaxweynaha oo la doortay Xasan Maxamuud, waxay idinla yimaadaan hadday khayr idinla yimaadaanna khayr ku qaabila, hadday shar idinla yimaadaanna shar ku qaabila. waxay idinla yimaadaan ku qaabila, laakiin qaabilaadaas aad qaabilaysaan shar iyo khayr waxay la yimaadaan waxaa ka horeysa labadan qodob horta inaad hirgelisaan, inaad isku duubnaataan oo adinka dhexdiina la dhexgelin oo laydin kala furfurin oo la iska kin horkeenin. waa kow.
jawaasiista intaas aan soo sheegay la soo shaqaysanaysay 32 sano oo criminal gangiska ah wixii jooga gadana ka saara hal midoo ka mid uu soo gelin waa kooxda ku xiran axmedoobe waa kooxda ku xiran Kenya waa kooxda ku xiran Damuljiid oo hadda xukunka dalka haysta oo Xasan Maxamuud waayeelka uu yahay Soomaaliya hadda madaxweyne u dooratay hal midoo ka mid ah kii aad ka celiseen garb uu dhuuban yahay lahaa waa gar dhuuban yahay la sheegayay oo luuq aad ka celiseen inta bad ku timaada iyo inta ubi soo raacda iyo inta baabuur ku timaada iyo inta diyaarad ku timaada inta bacayriya inta joogto hadda gudaheeda ku sugan ka saara labadaas hadda sameeysan dawladda Xasan Maxamuud Prime Ministerna uu ka yahay ninkan la magacaabo Xamsa hadday khayr idin la yimaadaan si fiican baad u qaabili kartaan hadday shar idin la yimaadaan si fiican baad isaga difaaci kartaan adinka reegada saddexda mahmaah ku taga calaamada nooc calaamasan oo hayska noo ah iyo meeshay noo taagneedna waxa weey warqadii 8 qodob ku qornayd oo ina ugaas xaashi uu yiri warqadaas ayaa reegado ii doorteen inaan ma taqaanaa aan dadka u sheego 8daas qodob baan warqada ku qornay ninkaas akhrinaya dhowr bilood ka hor bay ahayd baan u malayn warqadaas wixii ku qornaa bartaas wili noo joogta wax isbedelay ma leh warkii ka dambeeyay oo ina ugaas xaashi oo asagoo caadi u hadlay iyo warqadii 8 ahayd isku dar labadaba isku dar kulligeen halkaasaan isku raacsanahay labada war oo midna 8 qodob ahaa midna isagoo live u hadlay warqadii kadib 8 qodob markuu madaxweynaha soo dhaweynayay oo laha waa maasantahay soo dhawow labadaas bay noo taagan tahay intaasaan reegada kaga tagay Cabdirashiid Janan maanta wuu hadlay xamar buu ka hadlay wuxuu yiri reer gadow weli waxa ka shaqeynaya gobolka Gado maamulkii Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo kursigii ka degay oo Xasan Sheikh Maxamuud ba hadda madaxweyne dalka ah Farmaajo 15 May ayaa laga wareeyay bil ka hor ayuu kursigii ka degay welina waxa bisha ka shaqeynaya Gado maamulkii Maxamed Abdullaahi Farmaajo marka waxaan xaalkiinu ileeg yahay buu yiri ushii Nabi Suleymaan oo markuu dhintay oo cuskaday ilama inta aboor cunay ay ushii jabtay kadibna Nabi Suleymaan uu dhacay jinnigiina marka uu ogaaday in Nabi Suleymaan dhintay af Soomaali ayuu inta ku yiri asagu ayadii quraan dhageysa marka qaala ta'ala ilaa ka sheekay Nabi Suleymaan wuxuu yiri falamma qadayna alayhi al-maut markaan ku xukunay mawdkii iyo dhimashadii Nabi Suleymaan markaan ku xukunay oo saacadiisii dhamaatay adduunka ku lahaa ma dallam ala mawtihi illa dabatu al-ard ma tusinin dhimashadiisa qoladii jinniga la oran jiray oo jinnigu uu ku shaqaysan jiray Nabi Suleymaan alayhi salaam ilama aboorkii uu cunay ushiisii uu ku taagna oo cuskanayay maahane تأكل من ساعته فلما خر مركو دعي نبي سليمان تبينت الجن جني وحاو عدادي إنو صو دعي إنو دنتي نبي سليمان وشينا جبتي أساقنا كدول دعي قال لو كانوا يعلمون الغيبة hadday aqaan lahaayeen cilmi qaybka kuwa yaqaan jinni maba yaqaanaan be ma labisu fil adab al muhin shaqadii ayaga ay ku xaqirnaayeen oo dhibka badnay hal sano maysan shaqeeyaan oo Nabi Suleymaan hal sano ayuu u ku taagnaa oo midaha dadkiina ay jinni ku shaqaysan waxay oranayeen amarkan Nabi Suleymaan noo soo dhiibay adinka jinniga ku socdaa shaqadaas qabta
way shaqaynayeen ayagoo u qaba nebi sulaymaan waa taagan yahay ushiisiina waa cuskan yahay geed yar baa laga dul dhisay qamiiskiisii coodiisa loo geliyey halkaasay muuqiisa ka arkaan nebi sulaymaan asaga ilaahay ka baryey ilaahu markaa dhinto dadkan bani aadamka oo anigee mataqaanaa iraacsanaa jinnigu hawsi shaqeeyo ilaa inta adiga ilaah doonto sababto anugu haddaan dhinto ii waayaan shaqadii jinnigu u qaban jiray oo caawinta ayaga aan ku caawin jiray waayaan waa laba mataqaanaa dhibaato oo culus baa hal mar isugu darmanaysa marka bal aniga dhintaye bal jinniga intii adoonto hawsii shaqeeyo 1 sano ayuu marka ushii ku taagna halkaasna yaa lagu shaqaysanayay aayada marka ilaahay wuxuu ku cadeynayaa jinnigu inuusan cilmi qayb aqoon sida bani aadamku uu cilmi qayb aqoon cilmi qaybka waxa qarsana ilaah bas yaqaan cid kale oo taqaana ma leh halkaas ku dhamaataan u malay aayadii aayadaas ayuu soo dilishaday cabdirasiid janan wuxuu u mahmahayaa mareexanka gada iyo ninkii la oran jiray maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne hore Soomaaliya wuxuu kala jeedaa ninkaas iyo amaradiisii iyo talooyinkiisii ka guura xasan sheekh maxamuud baa wadanka madaxweynaha u guura mareexan gadow buu ka wadaa wuxuu ka wadaa oo kale dadkii gada u madaxda uga dhigay oo xilligii maxamed cabdullaahi farmaajo gada madaxda ka ahaa kulli waa in la bedelaayo axmed madoobe iyo Kenya iyo TPLF-ka qolooyinka u shaqeeya oo mareexanka oo asaga uu ka mid yahay cabdirashaan ah anuguna u aqaano jawaasiista iyo daba dhilfiyada mareexanka anu aqaano kuwaas hanala ku bedelo ayuu ka wadaa marka waa arji qorasho weeye arji wuxuu qoranayaa dawladda xasan maxamuud iyo baraym sarka maanta la magacaabay ayuu arji u qoranayaa warku wuxuu u sii marinayaa idaacadaha oo wuxuu ka wadaa nuutaa kuleeya axmedoobe iyo xasan sheekh maxamuud iyo baraym sarkada la magacaabo xamsa in laga bedelo gobolka gada laga qaado maamulkii maxamed cabdullaahi farmaajo oo mareexanka ay gada joogay annaga hanala ku bedelo intii mareexana inta kale oo digli mirfli iyo diriya Soomaalida kalena ayagana dabcan saas u bedel buu ka wadaayo kooxdii axmed madoobe iyo Kenyaati iyo TPLF Oxmay joogtay hanala ku bedelo hadalka macnihiisu saas u dhacaya saasuu marka mareexanka wuxuu ugu mahmaahaya farmaajo waa tagay amarkiisii iyo sawiradiisa iyo luqadiisa raaxamarka oo ku hadli jiray inta iska ilowdaan hadda midaan xayowga ku hadlo xasan sheekh maxamuud iyo midaan uu ku hadlo sujuuga iyo maaqa Itoobiya meel uu ka yimid yarkan hadda la magacaabo ogaadeen xamse ama aga hadhaho ama sidii sujuuga ha hadle raaca tii hore axmedoobad garanayseen raaca halkaas uu ka wada xataa lahjadaha badashu ka wada ninka marka warkiisu waa saas bal hadda dhageysan marka jawaabta 6 aayad baan ugu joobaynaa laakiin halka aayad baan ka soo qaadin ugu horeysa 5 kale isaga ku darsanaya maadaama uu itixaad ahaan jiray waagiisii hore dabcan haddana uu malaha ku biiray damul jiid ku biiray ama se firqadiimeedkiiba ka tagay oo TPLF iyo Kenyaatu ka masaxeen iyo axmedoobe oo iska noqday mataqaana qolooyinkaas dawar ilfadii jawaasiista uu iska noqday isaga yaqaan ama dad hawlo tago ama asagu ha akhrista haduu yaqaan qaala tacaala وقدرنا فيها السير سيروا فيها الليالي وأيما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وقدرنا فيها السير سيروا فيها الليالي وأيما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد صدقت كبلا بيسا إلى يوم مقرضك لبلوغ هذا قل من يرزقكم فقالوا ربنا كبلوا مركز
وقدرنا فيها معنوه وحول صعده آيدي هر دمات كذا كوغو خري فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقدرنا وحن كان فيها السير صعدك لو كلا سعونيا ريسابا او كلا سعونيان يمن iyo شام سيروا صعدة فيها ليالي هبيندي اسكا صعدة وأياما آمين مالنتين اسكا صعدة أذنكو مالني هبين نبدقلها يو شرعي بلايو دان كان نبدقلها إلهي با وحو ugu naxariistay reer Saba inuu socodkoodii u sahlay markay ka lugeeyaan Saba ayagoo Sham u socda oo dana kale ayuu wuxuu isku xiriiriyay degmooyinkii reer Saba iyo wuxuu isku xiriiriyay kuwii reer Sham degana intaas waxa isqabsaday bani aadamkii ama reer Saba ha ahaadeen ama qolooyinkii kala dariska la ha ahaadeen ayagii oo inta farii laga badiyay barwaaqoobay ayay iska soconayaan markaad guri ka tagto oo degmo ka tagto oo qabiil ka tagto qabiil kala galaysa ilaa Asham ka tagto waa kibreen marka barwaaqadii Ilaahay bay ku kibreen nabadgelyadii bay ku kibreen maalkii bay ku kibreen marka shirki iyo gaalnimo iyo kibir iyo dadka masaakiinta oo ka xoog badan yihiin ama ka dhaqaale bay ku kibraan ku jeestayaan bay bilaabeen markaasay haddana Ilaahay waxay ka dalbadeen فقالوا ربنا باعد بينهم إلهو كلا ديره بين أسفارنا لقتنا الله كلا ديره وظلموا أنفسهم إلى وحير نفط هذه يدلمن أول بشرك يقال لما كدلمن مساكين تهدنا لباتين ترين حد دير إلهي وحي كدل بدين بس يبلايو إلهي إنو كلا فوقيو قفكم مركو لغين يهبينكي اللي بحمل الله كهرو أون يقاشو لنتو قرح ديشو وحب يسيه وايو عيدو كوهيدا وايو إلهي بلاي كدل بنيان برواقدي كوكرين ونعان مركاسا إلهي وحي كدل بدين باس إيه بلاي فجعلناهم أحاديثا إلى وحير شيكوين بان كيا الله باس كأن يدل بدين تكسي ديني أيام وحان كيا الله وحدة كوشا كاستو ومزقناهم وان كلا جوجيني كل ممزق كلا جوجين أيجي مد بمال بالغة طورة 200 كيلومتر 100 كيلومتر 100 كونتن 300 bal isku jirsi markaas qofku qorax iyo gaajo iyo haraad iyo baqdin ayay marka dhaxleen inna fi dhalika al-ayati likulli sabarin shakur ayadaas la soo akhriyay iyo sidaas edab daradaas iyo gaalnimaas iyo shirkigaas iyo kibirkaas iyo xadgudubkaas reer Saba ay sameeyeen sida Ilaahay ugu abaalguday oo midba meel laga tuuray qofka dulqaadka badan Ilaahna u mahadnaqaya ayaa ka faa'iideysanaya oo ay 10 iyo darsi u tahay Soomaaliya Ilaahay 60kii calan buu siiyay nabadgelyo siiyay aadan Cabdullaahi Usmaan madaxweyne ahaa Cabdirashiid baa bedelay Maxamed Siyaad Barre bedelay 78kii waxay bilaabeen inqilaab iyo qabyaalad iyo Ethiopia aado jabhada la sameeysto la soo duulo dalka la burburiyo dadka qabiil la isugu diro munaafaqad laga shaqeeyo markaas Ilaahay 91 mid meel ka tuuray inta guud oo Soomaaliya way geday yimaadeen Mareyxaankii ayagoo wata edab daradooda ay kala yimaadeen xamar gada markay yimaadeen ayaa Ilaahay wuxuu ka soo dhax saaray nooc oo kan ka mid yahay Cabdirashiid Janan iyo wax la mid ah oo sidii reer Saba oo kale u dhaqmahayo Ilaahana amarkiisa diidahay dadkii reer gadana oo Mareyxaan ku kibrahaya iyagiiba haddana Ilaahay kooxa u sii kala qaybiyay markaas mid marka hor kale mid kale ayagiiba cardaadiqaas ka dhigay Mareyxaankii gadana cardaadiqay ka dhigan
haddana kismayay u guureen kismayay haddana markaa waxay la xirteen awal TPLF iyo amxaray la xirnaayeen haddana Kenya la xirteen iyo Axmedoobe hadeeray marka Soomaaliya kalena cardadiqaha ka dhigahayaan ayagiina cardadiqaas ka dhigahayaan ayagii Axmedoobe mar kala baxaya mar wasku soo noqonayaan mar mareexanka dhixdiisii baa gadiye kismay ku dagaalamahaya mar kismay ku dhex dirirahayaan mar gadiye ku dhixirahayaan waxa noocaas wadana waa kooxdii 91kii bilowday waxaan oo wiilkan kamid ahaa waaga soo itixaada iyo inta hadda nool qaarna waa dhinteen intooda dhimatay inta noolba dhaqankaas edab darrada ah oo kibirka ah oo ilaah laga xiriir furtay oo la kibray dadkiina mareexan reegada loo kibray haraagi noocaas ka soo haray ayaa hadda Maxamuud Sayid uu waayeel ugu yahay intooda mareexanka kismaayo fartaag baa ku xiga oday kan adeerkiisa baa ku xiga maxaa la oran jiray oo baris joogi jiray maxaa la oran jiray oo degmada Qoryooley oo shabeellada hoose ka ahaan jiray gudoomiyaha degmada dawladda Maxamed Saabare Khaliif Qoryooley mid kale oo General Yusuf Dhumaal iyo asagaan janna saddexdaas Reer Axmed baa la yiraahdaa saddexdaas oo Reer Axmed ah mid kan oo Reer waa Sharmaaka oo Reer Diiniya maxaa la fartaag Maxamuud Sayid oo Reer Xasan ah gaashireele inahaas iyo ina lamid ah oo qarnigeeda u joogan qarna xamar joogan qarna Nairobi u fadhiyaan inahaas ka soo haray shaydaamadii mareexanka oo ilaa 91kii gado iyo kismaayo dhibaatada ka waday ilaahay markay xamar joogeen mareexanku waxay idbar sameeyay jireen waa ogaa markay idbaradii gada la yimaadeen waxay sameeyay ilaahay waa ogaa waxay kismaayo ka sameeyay ilaahay waa ogaa hadda waxay gada ka sameeyaan inta haraaga oo ka soo hartay kuwii ama itixaadka ahaa ama ahaa SNF ta ahaa ama kuwii labadaas kadib dhashay oo magacyada kala leh waxay rabaan ha noqdeen kooxahaas oo dhan anigu waxaan u aqaanaa waa kooxaha daba dhilfadiye jawaasiisaan u aqaano way waa shaydaamo insi awey qalbigii waa shaydaan jirkiina waa bani aadam way kuwaasuu ka mid yahay ninkan Cabdirasijan mareexankii gada markuu kala cararay oo ilaahay kala fogeeyay qaar kismaayo ka tuuray qaar kismaayo gada inta u dhaxaysa ka tuuray qaar xiriyaha qaxootiga oo Kenya u tuuray qaar xiriyaha qaxootiga Itoobiya u tuuray intii hadda ku soo hartay gado ayuu haddana wuxuu rabaa asagii kooxdiisii Maxamuud Sayid iyo wixii la mid ah inay intaas sii kala kaxiyaan sii kala ceeriyaan bay rabaan oo marka mareexanka sida Yuhuudiga Hindida shanta qaaradood ay ka kala dhacaan midba meel oo la yiraahdo bari baa mareexan qaxayo Soomaaliya ka qaxayo qaar Australia lagu sheegay qaar America lagu sheegay qaar Europe lagu sheegay qaar Asia lagu sheegay qaar Africa iyo Nigeria meelaas Ghana lagu sheegay iyo mataqaan Benin iyo xaggaas South West Africa lagu sheegay marka haraagii buu rabaa inuu ka kaxeeyo degmadii uu ku dhashay oo Reer Axmed ku degi jireen oo lagu kala cararay maxaa la oran jiray doolow awal luuq bay degi jireen nimanina waqmahaasa ka qabsaday oo ilaa hadda ka haysta ilaa 90 ma aqaan 899 meelaha ka qabsaday oo luuq ma tay karaan ayaga Reer Axmed asaa ka shaqeeyay iyo wixii la mid ah balad xawi qaxooti ku yihiin oo hawrar sameey caaldheer kaga badan yihiin oo minority ku yihiin Reer Axmed kismaayo minority ku yihiin Axmedoo maalba ku gumaada Reer Axmed yaa ka shaqeeyay asagaan ayada quraanka hadda ugu mahmahayo reegado iyo u soo daliishanaya farmaajo iyo wixii la mid ah ku raacsan iyo adeerkiis qayb Qoryooley baa ka shaqeeyay in Reer Axmed luuqna laga qaado doolowna hadda Soomaalida kale ku soo ku baaraysay oo minority ka yihiin balad xawi qaxooti ku yihiin kismaayo qaxooti ku yihiin garbaharay qaxooti ku yihiin baardheer qaxooti ku yihiin aqligiisu foorara shaydaanku fooruriyay wixii khayrkii xaqiina oo shaydaanku uu sheegay xumaan wixii xumaantan u qurxiyay ilaa hadan uu isgaran la yahay in shaydaan dhagray oo ku ciyaarahayo oo wadadii Ilaahay uu ka leexiyay wadadii Ibliis u qurxiyay oo ku socdo قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين
walaqad waxaa dhaba sadaqa inuu run sheegay calayhim korkooda bani aadamka inuu ku run sheegay ibliisu odaga malcuunka dannahu malihiisii muxuu ahaa malihiisu ilaah buu u dhaartay wuxuu yidhi in yar maahan inta kale waa la tegahayaa bani aadamka midkaan ileeda u sujuud oo nebi aadana carruurtu dhali doono kulligood waa kaxaysan marka xoogaa yar oo adiga khaalisku waa laga reebo maaha inta kale waa la tegey qaala tacaala ayadu saasay ka hadlaysaa walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin in yar oo mu'minta maahane intii kana bani aadamkii nebi aadan carruurtiisii wixii la oran jiray insaan naaskii o dhan waxay raaceen ibliis kan wuxuu ka mid yahay marka cabdirashiid janan aayadda qur-aanka qoladii sheegayso ibliis raacay oo shaydaan hoggaanka iyo xargaha ku kaxaystay xaqiina u foolxumeeyey baatilkiina u qurxiyey aayadaha marka kuu soo haray dhammayso ilaa maqrada kale bilowgeeda qulman yarsuqaad ka gaartid aayadahaas marka rumeeh oo macnahooda baro oo haddana ku dhaqan maslaxadda kugu jirtaa maxay tahay waxaad dembi hore soo gashan ilaah inuu kaa cafiyo aakharana janno ku geeyo haddaad diiddo oo saan ku dhimato wixii dembi aad gashay ilaah baad la hortegin ama jannaha ku geeyo ama naarha ku geeyo isaga awalba ku abuurtay intaa waxaan kaga tegaynaa wiilkaas iyo waxa la midka oo Soomaaliya 32 sano ka wada qas iyo lab ka wada dabal ilifyada iyo jawaasiista raba inay dalka Soomaaliya ku wareejiyaan Itoobiya Kenya khayraadkana ay qaataan shisheeye iyo Yahuudiya Mareykan waxaan u tagin ninkan barnaamijka saddexiisi maahmaahood ninkan xalay baan si fiican uga hadlay asiga Xashi Maxamuudba waxaan ku leeyahay Xamse Cabdi Barrow saddex maahmaahood iska qabo ama waxaad noqonaysaa 6 bilood oo barnaamijka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaqankiisii baad yeelanaysaa Soomaalidu say u jeclaadeen bay ku jeclaan wixii amal fiican u qabtay baad qaban ama Maxamed Xuseen Rooble oo Farmaajo magacaabay oo hadda xilka kugu wareejinaya ayaad qabanaysaa oo ah barnaamijka Soomaaliya soo maray ilaa 60kii ninka ugu liita oo dabadhif jaajuus ah kaasaad noqonaysaa waliba aad u liita oo hooseeya oo nooca insaanka ugu quality-ga xuna mahmaadada labaad ama Maxamed Cumar Shees baad noqonaysaa oo gacanta mid Maxamed Shees Barra ahaa 25tii saraakiishii golaha sare oo inqilaabka la sameeyay ahaa ama kii asaga ka yara oo walaalkiis ahaa oo jabhadii SPM ahaa oo migis xal mar Itoobiya aaday oo dawladda Soomaaliya wax ka riday Axmed Cumar Shees haddana lagu sheegay jigjiga kaasaad noqonaysaa fircoonkaas hadda nool oo ogaadeen baad noqon ama ninkii ka weynaa oo cabqariga ahaa oo Maxamed Shees Barre gacanta midig ahaan jiray baad noqon mahmaada kugu dambaysa ama Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan noqon oo Ingiriis oo Afrikaanka u soo dira kuwa qoryo wata yar yar oo xabad kaliya waliba oo kadibna Afrikaanku ay isdhiibaan oo Ingiriiskiisa Maxamed Cabdullaahi Xasan kaga qaylisiyay ilaa ay diyaarado dagaalkii kood ku galeen u keeneen saasna kaga adkaadeen taariikhdana baal dahaba kaga jira ninka ogaadeen oo bahgari baad noqon ama kii cawliyahan oo balcad laga soo celiyo soo Itoobiya wata oo raba inuu badda ay qabsadaan Itoobiyaanku 1800 meelahaas oo balcad ay ku soo jabiyeen wacdaanka iyo nimankan Muubilan Cismaan iyo nimanka dirta biyo maalka ayaad noqon baadigaas cawliyahan baad noqon marka wiilkaaga ogaadeen oo Maxamed Subeer oo reer Cabdilla dadku ku sheegayaan reer Cabdilla inuu ka sii yahay ugaas kooshin waxaan u malayn dhanaan iyo budaweyn baa degtaan baan u malayn adinka reer ugaas kooshin iyo ugaas cilmi iyo ugaas nuur iyo meelahaas degtaan baan u malayn qiyaasti saasaan malaynaya saddexdaas mahmaa baan kaaga tagay adiga Xamse Cabdi Barra waxaan fiirinaynaa maalinkan barnaamijka ka degto iyo maalinkan maan 15 Juun lagu magacaabay taariikhdaada markaad xil ka degto baan ku akhrin doonaa marka ilaa qiyaamaha
maanta laga bilaabo ilaa maalinka xil ka degto ama 4 sano ha kuu dhaafto ama ha kuu gaartee ama ha ka yaraatee waxaad naga shaqaysta annaga shacabka Soomaaliyeed wanaag iyo xumaan ayaan buugga kugu qorinaa diiwaankan kugu gelinaynaa shacabka Soomaaliyeed warkayga caawa waa intaas aad iyo aad baa u mahadsantihiin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh